السلام عليكم أصحابتا سو دوادا ولاشين دقان سهرو كما عدهر أيا ميل كستا جوجتين إنك السلام يا هرتا سلام سري أو قايمة إيا قايب بدنا هودنا إيسو مرنا ميل كستا جوجتين maanta waxaan wadanaa marka book iyo qalin maanta wata wax ma ogidina marka ma sha Allah aad ayaan ii soo dhaweynayaa meel kasta joogtiin saan ii sheegay please ku soo dhawaada channelkayga dadka ku cusub aad ayaan ii soo dhaweynayaa maanta xoogaa qayla guriga yeeros oo alarmka guriga maxay ahay kan oo fire ka sheego baa shalay iska bilaabay dhiq anoo video soo binaay marka insha Allah ka raali ahaada islaan hadlo sagadaashay loo baaray ku heysano iga daba qaylinaysa marka insha Allah marka dadka cusub aad iyo aad ii soo dhaweynayaa meel kasta joogtiin oo channelkayga ku soo biiray iyo inta subscribe gareysan aad ayaan kaga mahadcelinayaa ma sha Allah welcome more ku soo dhawaada ma sha Allah hooyooyin ayaana Soomaali ah oo ma arkino is caawinayo oo iskarab taagan ma sha Allah all my friends oo isoo raadiyo YouTube yaasha aad ayaan kaga mahadcelinayaa gabdhaha dhan ma sha Allah oo raba in hooyooyinka soo kiciyaan wallahi waa la kala ma arkino dheere iyo galin badan yahay oo dadka waa iska kala xiriir og yahay qofkaas Ilaahay isku si kama dhigan soo all the girls da ma sha Allah aadan ii salaama meel kasta joogtiin iyo inta kale oo nagu xiran ba soo dhawaada channelkayga marka insha Allah saan ii sheego horta waa ka salaantii qaylinaysi waa caafimaadkayga ma sha Allah 100% alxamdulillah Ilaahay caafimaad laga helaa am fine hadartaan kanoorihii 2020 naga raacay sida u duceysaneen Ilaahu naga wad naguma soo celiyo 2020 ma sha Allah marka taas halkaas ay tahay wax yar oo cuntadii still abateedkii ma arkino like far away oo soo raadina wali insha Allah walba anigoo reero abateed iska ahayn oo miss skiini iska ahay ma arkino ma sha Allah haddana marka sii jirtid is a different story marka insha Allah halkaas taas ku dhan tahay inta ii soo duceysay iyo inta maxay ahayd nala soo hadashay all the family friends asxaabta everybody ma sha Allah oo on videoasha ku xiran aad kaga mahadcelinayaa horta kanoorihii insha Allah naguma soo noqon doono wuu naga tagay alxamdulillah anigana waa fiican ma sha Allah okay maxaa u soo noqonona maanta iyo maxaa maanta meesha yaala waa maanta markaan jirana waan ii sheeg waxyaalo badan aan maxay ahayd aan soo bartay marka wadamada qurbaha hadii la jooganayo you guys know in as a hooyo you know we deal with everything wax kasta anaka dhil gareeno teenagerka ama boy ha ahaado ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado intaas maari qofku yahay anaka hooyada baa la socoto hooyada baa wax kasta la shaqeyso hooyada iskoolkii la og hooyadii soo hooyo all the time you know ma sha Allah aabooyinka inta ku jirtana oo ku xiran ma sha Allah idinkana welcome inta kale ka sii maqan biliis ku soo biiro hooyinka in la caawiyo oo wallahi waxyaalaha oo hooyinka hayaan hadii lagu soo deelaha ragga hey things will be different marka ma sha Allah in la is halbagareeyo marka maanta wuxuu ku socdaa barnaamijkayga sidii hadii cunug baa aragtay Soomaaliya hadii la joogo ma sheegaya because I don't know dadka Soomaaliya jooga iyo dadka meelaheena jooga different way loo dhaqmaa ma arkino ma sha Allah marka ama Europe joog ama Ingiriiska joog ama you know meelaha Arabta joog ama Canada joog Europe iyo Canada kula Europe iyo Ingiriiska de you know what I mean meelaha dhan adduunyada oo qurbaha isku soo xiray ma arkino joog idaas maara sida ilmaha ula dhil gareeno hadii cunuga uu ku soo jeesto maanta sheekada waxa ku saabsanta cunuga dhashay markuu xoogay ama 16 uu soo gaaray cunuga high school oo ama 15 16 adiga 17 iska badhebo intay jiraan hadii cunugii uu ku diido oo ku dhaho school ma aadayo I'm tired of school kan I don't want it dad bahad waxa socoto sheekooyin la dhaho dadka being rich with no education waxa la dhaha jirto hada waxa baranin baaba jaamacad ka soo bixin you don't need waxa lagu dhihiba aba millionaire iska noqon kartaayo ilmihi waxba iska dhaadhiciyeen ba like you don't need maxay aad wax barasho ina wax meel ku gaartid oo horumar ku gaartid wax kasta suubsan kartaa horumar baa suubsan kartaa waxa suubsan kartaa lagu dhahayaa marka hadii cunuga uu iskuul soo istaago ama dugsigiiba ka soo qaado cunuga ku dhaasagoo 15 markii ma sha Allah ki quraanka dhameeyay alxamdulillah wuu dhameeyay ki aan dhameeyno kale uu ku yiraahdo hooyo waa weynaaday I'm tired of aniga dugsigan iyo waxaan I don't want it anymore haaru ula dhil garay leeyahay as hooyo wixii you know anaka waxaan rabnaa in ilmihi noo yeelan hooyo dugsiga waa kana waa og tahay waa dugsi fiican waaye diintii Allah barta ilaaha quraanka u barnaysa anim ii barnays you know whatever I should excuse aan shaqay waayaan so xasibileed am oo ku dhahay iskoolka am tired am not doing school anymore waa iska dhaafaya waxaan aadaa shaqan aadaya maxaa soo bileed
ama kasoo qaadba high schoolkii wuu ku dhameeyey, he finished high school and he don't want to go to college, wuxuu ku dhahaya intaan bes waaye, I know enough, so haddana ii sheegayay enough waa aqaanaa oo igu filan wax ku subsado, I can do a lot of different things besides inaan school aado. Marka aasa hooyo aasa aabo ilmihii, so I think a lot of people struggle with it ku jiro, like aniga hadda example waa arkay waxaan ii sheegay just like family friend ha ahaato meel kasta ha ahaato, I saw a lot of kids oo hadda saas dhahayo, include mine aba ku jiraan dugsi wala diida qaara, dugsi diida qaara, school diida, ilmaha they not the same, mid kasta waxba ku jira, mid school duu ku aado xataa qaara waxa ku dhaha dugsiga marbi aad isaga quraankii marka uu gaaro. Alhamdulillah, you don't have to finish the Quran, horta qiidada cunuga inuu ka dhisan yahay, like I always say, is important. Inuu adiga dugsi ku aadan inaad bartid waa cunugan oo dugsigan ilaahay u aada hooyo, aniga dugsi ima aadaysid, you know, anaga hooyo ahaan waxaan rabnaa inaan dhawr dugsiga aad haddii kale cadaabtaa gelaysaa oo saan adaa wixii soo banan say communicationkii cunuga ula keeni kartaa inuu wixii adiga aa rabtay oo horumarka ahay asa adaa og inaa hooyo oo horumarkiisa adigaa og, asaga leero aan markuu weynaado oo hadhow gadaal kasoo fahmaya, laakiin haddeertaan qofka og waa hooyadii ama aabihii, bas cunuga waxaa laga yaaba inuusa waxaas dhanba ujeedan adigaa ujeedo. So my question is sidee ogtiin Soomaaligayga iyo Ingiliishkayga wixii dhan fani waay, marka sidee ula dhiilgarey lahayn oo dhihi lahayd hooyo okay jidkan saas waaye, adoo cunugeen wax fahansiinaysid oo ula marmi lahayd, ama iska soo qaad cunugtaada isku soo taagtay oo 15 jirto ama waxbay jirta waxba inaa ka dhaadhicsaa rabtaa, is like se wax uga dhaadhicina cunugan maday ku tira wixii marabi. Okay, marka saasaan i weydiinay maanta su-aasheeda halkaas ku saabsan tahay, comment me down below sida fikradeeda fikrad ka duwan inay haysataa laga yaabaa. For me marka buugayga aan kusoo qortay 3 xabo ana tusaya I have little things in there, so I don't know, let me see, 3 xabra haysta, it's my calendar, like calendarkayga. Marka for me horta koow first waxa waay jawigan cunuga uu ku jiro maxaa waaye, like you know ilmaha, my first one it's like waqtigan u baahan tahay inaad la murantid mise daadhay uu hadlaayo oo ku dhahayo waxaan waa nacay, jawigu ku jira inaad ka bilowdo sheekada. Okay, gabdhaha kala jawiye leeyihiin, wiilasha kala jawiye leeyihiin, everybody knows that, so is it the right time or exactly that time oo cunuga kuula imaado hadalkii inaad u jawaabtid mise waxaad dhahdaa saas miya hooyo, okay isku soo noqonaynaa insha Allah, and then look the right time. My first advice waxa waaye cunugan ama gabadhan waqtigee ku jirtaa, hadoo kaleeto waxaa lagu jiraa waqti xun oo stress ah oo ilmihii guriga lagu xiran yahay oo maxay ahaato you know oo saaxiibadii banaanka la aadayay, iskoolkii oo exercise la subinayay, meelihii eerka loo baxay inuu si jirin, so that pressure markay cunuga saaranta kale you don't have to inaad jawaabta hore ka celisid, you know that day inaad hore jawaabta ka celisid uma baahna. Isma number 1 muddo ugu horeyso oo isiinaayo waa taas. I'm trying to figure out advice wixii Soomaaliga lagu dhahay like fikradaas maalintaas oo cunuga uu haysto inay ka bedelan tahay adigtaada oo tira okay Allah hooyo laakiin haddii asagoo waqtigaas ku jiro adigina tiraahdo maana hadda sheekadaas ii keentay, wallaahi saan ma ahan, wixii dhici doono oo adduunyo dhan iskugu yeerto waan taqaana telefoonkeena aan qaadano naa farxiye maanta gabadheed waxay ii keentay war ma haysaa wiilkaygii, you know you have to marka jawigaas markaas inaad dejisid jawi qabow aad ka dhigtid oo jawi kale aad raadisid. Horta hadoo kale hadii lagu keeno isku baadar gareen ba isku waxaan tira horta insha Allah markii iskooladii wixii lagu noqdo wax kasta waa iska online, waa iska easy, aan isku soo noqoneena. Okay, gabadhaadoo kale marka taas waa midayda koobaad, iyo sidee u caawi kartaa cunuga marka adoo qaylin as hooyo oo dagaal keenin oo balaa ku aragta aad dhino cirka soo dhicin, you know I'm trying to stay in the same subject aan ka hadlay, I don't want to open another subjects because you know markaan hadal hooyo aan bilowno wax kasta ku soo dhacdo, you know, and then you can open 100 different subjects of furuusa maanta so I'm trying to stay not to do that insha Allah inaana buug kala furan iyo meelo kaleeto. Marka subjectiga wuxuu ku saabsanaa labadaas xabo hadii cunugii ama dugsigii ama quraankiiba iskoolkii ama dugsigii quraankii in labadooda haduu ku dhaho marbi sidee ula dhiil garay lahayd waaye. Okay, dad badan ama had waxa socotaba sheekooyin aan maqlo hadda lagu dhahay aan waxaan barabaaba iskoolka oo lagu xaroodo boonal iskoolka meelaha Afrika ka jirta igee gabdha oo dhahayaan oo kaleeto
example ana hadda kuwa ijoog waxa la boarding school ama rabnaaba oo meel lagu xaroona rabnaa oo gabdho bis so wixii marka adiga og sidee u dhil garay lahayd aan rabaa inaan iga fahansiisin iyo dadka dhibkaas oo kala arkay iyo how you uga booda maasha Allah tan kaleetana waxa waaye hadda sidaan ii sheegay ama gabadhaada ama wiilkaas jawigiis inaad la socotid oo cunuga waqtiga la hadlaayay aad ka fiirsatid okay what time is it waqtiga gabadha waqtigeedii miya oo la hadli jiray because ilmaha marama nerves iska yihiin oo xanaaqsan tahay electronic ka bax ka maqluusa computer ka bax ma ka maqluusa guraan ka soo bax ma ka maqluusa like everything is like shut down with the attitude and everything so it's like okay waa dareemi kartaa wixii I know ilmaha way korayaan hormoonkooda is changing a lot of stuff is changing marka waxa laga rabaa hadii hooyo ka casan aad tahay you know always hooyooyinka isku mid ma ahan hooyana waa iska maskiin iska aamusan tahay hooyana waa miral hooyana waa the high level naya qaylada is just right away ayadiyaaba waxay ku jirtaa jawi kale marka masha Allah so jawigaas ina ka soo degtid adigana oo imaatid okay aad tiraad cunugan okay waqtigeeda waay waqtigu ku jiro istan gabadha waqtigeeda miya wiilka waqtigu ku jiro age waaye you know communication is the key marka insha Allah taasan i weydiinay jawaabteedana waa in ka sugayaa aniga teedana saas waaye like ina marka la isfahmo fahmitaanka iyo hadalka always wax badan ayuu qabtaa cunuga markaas oo xanaaqsan ina inta iska dhaaftid mar kale u soo noqotid tira okay hooyo are you ready to talk now gabadhiya maanta aad isdagaashan baka masqal wiil aad isdagaashan aad tira okay that time wixii dhan ha isku dayin ina wixii dhan hal mar aad dabooshid oo xirtid oo meel go'aanka aad ku soo reebatid ma arkino isku dayin waxa isku dayda mar uu soo dago cunugaas oo jawigaas uu ka soo dago ama xoogaa uu habiyahay inuu aad u soo noqotid tira okay hadda reed dhimato inaan kula hadlo marka maanta jawaabtay saas waaye intaas yarka advice ka as a hooyo we deal with a lot of different stuff insha Allah let me know what you have insha Allah anigana jawaabteeda in ka sugaya iyo what you guys think ideas insha Allah wassalaamu calaykum make sure inaad channelkeena share iyo subscribe down below masha Allah iyo like tana soo bada marka aad ayaan kaga mahadcelinayaa assalamu calaykum